kulan waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa xulashada wararka oo ugu barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 7 bisha 8 Agoosto sanada 2022 waana habeen Sabti ah. Qodobada iminkadan daawan doontaan waxa kamid ah Itoobiya oo ku dhawaaqday inay dhammaan ciidamada qaranka dagaal galinayso iyo wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda wadankaasi ayaa idin faahfaahin doonaa. Garabka Mahdi Guulood ee guddiga doorashada gobolada waqooyi oo hoggaan doortay maanta. haddaba ra'iisul wasaare Rooble oo qoraal degdeg ah ka soo saaray doorashadaasi waan idin faahfaahin doonaa. waxaynu kala eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo si adag uga hortimid qorshaha Midowga Afrika. muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaan. qodobadan oo faahfaahsanayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa. fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad hore noola joogtana sii share gare muuqaalkan si daawadayaal kale u gaaro ay ugu bogtaan. daawashadaadu wacan waad ku mahadsan tahay. aynu ku bilaawno. Itoobiya ayaa ka digtay inay howlgelin doonto dhammaan awoodeeda ciidan kadib markii ciidamada Tigreega ay ku siqeen gobolada dariska ah. dowladda waxaa lagu qasbayaa inay sabaabusho ay daad gurayso dhammaan awoodeeda qaran haddii nabadda iyo xaaladda bini'aadanimo halis la geliyo. waxaa sidaasi war-saxaafadeed ku tiri wasaaradda arrimaha dibadda. ficilada koox aan mas'uul ahayn ayaa tijaabinaya dulqaadka dowladda federaalka, waxayna ku qasbayaan inay beddesho xaaladda difaac ee loo qaatay sababo la xiriira xabad joojin bini'aadanimo oo hal dhinac ah ayaa lagu yiri qoraalka. goor sii horeysay afhayeenka jabhadda TPLF ee Tigray Master Reda ayaa ku gacan seeray baaqyo ku saabsan inay ka baxaan gobolka Anfarta iyo Amxaarada. hadalladiisa ayaa yimid maalin kadib markii ciidamada ay qabsadeen magaalada Lalibela oo ah dhaxal caalami ah oo ay aqoonsan tahay hay'adda UNESCO oo ku taalla gobolka Amxaara. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa bishii Juun ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah kadib markii ciidamada Tigreega ay dib u qabsadeen magaalada Mekelle caasimadda gobolka Tigray. saraakiisha ugu sarreysa Mareykanka ayaa ugu baaqay TPLF inay ka baxaan gobolada ku yaala bariga iyo koonfurta Tigray, waxayna ku booriyeen dhammaan dhinacyada inay joojiyaan dagaalka ayna taa beddelkeeda diiradda saaraan wax ka qabashada musiibada bini'aadanimo ee Tigray. dhanka kale wararka sheegaya in xoogagga fallaagada Itoobiya ee daacadda u ah xisbiga TPLF ay la wareegeen magaalada taariikhiga ah ee Lalibela oo ku taalla waqooyiga dalkaas ayaa muujinaya inay guulo waaweyn gaarayaan maleeshiyaadka laga adkaaday 8 bilood ka hor. wargeyska sida gaarka ah loo leeyahay ee Addis Standard oo ka soo baxa Itoobiya ayaa 5 bishan Agoosto Twitter-ka ku sheegay in fallaagada Tigray oo ku dagaalamaya magaca ciidamada difaaca Tigray ay qabsadeen magaalada Lalibela oo ku jirta goobaha taariikhiga ah. waxaa wargeyska soo xigtay in ku-xigeenka duqa magaalada Lalibela oo warbaahinta caalamku u xaqiijiyay warkaas. Lalibela waxay dadka qaar ku tilmaamaan magaalada ay xiisaha ugu badan u qabaan dalxiisayaasha taga wadanka Itoobiya. 8 bilood ayaa laga joogaa markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay in la soo afjaray dagaalka Tigray kadib markii ciidamada federaalka ay la wareegeen caasimadda gobolkaasi ee Mekelle 28 bishii November 2020. 7 bilood kadib dowladda waxay badbaadsanaysay wajigeeda iyadoo sheegaysay in 29 Juun ay xabad joojin la gaartay Tigray si wadada loogu xaro in la sameeyo gargaar bini'aadanimo. hal maalin kadib generaal ka tirsan militariga ayaa la soo xigtay isagoo sheegaya in Mekelle ay noqotay meel aan tababar loo heli karin. hase yeeshee xabad joojintii waxaa la shaaciyay hal maalin kadib markii warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa dibadda ay xaqiijiyeen in xoogagga fallaagada ay dib u qabsadeen magaalada Mekelle. fallaagada waxay markii dambe soo bandhigeen kumanaan askari oo ay ku sheegeen in ay ka qabsadeen ciidanka Itoobiya markii ay ku dagaalamayeen agagaarka Mekelle. hoggaanka TPLF waxay shuruudo ku xireen heshiiska xabad joojinta, waxaana durbadiiba xigay dagaallo sii xoogaystay oo gaaray gobolada Amxaara iyo Anfarta oo Tigray xad kala wadaago. dhinacyada galbeedka iyo bariga dowladda ayaa ku eedeysay fallaagada inay weerar ku qaadeen kolonyo gawaarida gargaarka wada oo marayay gobolka Anfar kuwaas oo mucaawino u waday gobolka Tigray.
kormeerayaasha xaaladda Itoobiya ayaa sheegay in ujeedada ay xoogaga Tigray diiradda u saareen gobolka Amhara ay tahay sidii ay u waxyeeleen lahaayeen dhaqaalaha Itoobiya iyo inay jiraan marinta ganacsiga ee ka dhaxeeya Itoobiya iyo Djibouti. Wadadaasi waxaa soo mari jiray 85% oo ka mid ah badeecooyinka loo dhoofiyay Itoobiya. Ujeedada kale Amhara loo weeraray waxay ahayd in la qabsado goobo ay labada gobol ku dagaalami jireen tan iyo 1990-meeyadii. Markii ay fallaagada gudaha gaareen, waxaa bilowday in gobolada kale Itoobiya ay ciidamo u diraan jiidda hore ee dagaalka si ay ugu barbar dagaalamaan militariga federaalka. Kumanaan dhalinyaro ah oo iskood isku xilqaamay ayaa tagay xeryaha tababarka militariga ee dowladda kadib markii Abiy uu ka codsaday shacabka inay garab siiyaan militariga qaranka. Barasaabka gobolka Amhara ayaa qudhiisa dhalinyarada gobolkiisa ka dalbaday in militariga ku caawiyaan dagaalka ay kula jiraan fallaagada. Agaagda wadayaal waxaan u soo laabanaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Garabka Mahdi Guuleed ee guddiga doorashada gobolada Waqooyi ayaa hoggaan doortay. Guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ee dalka garabku uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed Qadar ayaa doortay guddoonka kadib doorasho ka dhacday xerada Afisyooni. Waxaa guddoomiyaha guddiga loo doortay Qadar Xariir Xuseen iyadoo aysan goobta soo xaadirin 4 xubnood ee guddoomiye ee uu soo magacaabay guddoomiye Cabdi Xaashi. doorashada ka dhacday xerada Afisyooni ayaa waxaa amarkeeda lahaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. goobta ay doorashada ka dhacday ayaa waxaa ku sugnaa wasiiro iyo xubno ka socday xafiiska Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. dhanka kale garabkii kale ee guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Cabdi Xaashi soo magacaabay ayaa iyaguna waxay doorteen guddoonkooda. waxay guddoomiye u doorteen Suleymaan Caydeed Cusmaan halka guddoomiye ku-xigeenka ay u doorteen Cabdishakuur Abiib Xayir. arrintan ayaa daba socota kadib doorashadii maanta ka dhacday Afisyooni oo ay diideen xubnaha Cabdi Xaashi uu magacaabay inay xaadiraan. tani ayaa waxaa laga digayaa in buuqii jiray kaga sii darto iyadoo lagu baaqayo in xal degdeg ah la gaaro. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku eedeeyay Ra'iisul Wasaare Rooble inuusan dhexdhexaad ka ahayn khilaafka siyaasiyiinta gobolada Waqooyi. guddiga doorashada gobolada Waqooyi ayaa ka kooban 11 xubnood. 4 ka mid ah xubnaha waxaa soo magacaabay Mahdi Guuleed, 4 kale waxaa soo magacaabay Cabdi Xaashi, halka 3 kalena uu soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. dhanka kalena Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa hambalyo degdeg ah u diray guddoonka garab ka mid ah guddiga doorashada Somaliland oo maanta isku doortay Muqdisho. qoraal daqiiqado kadib ka soo baxay xafiiska Rooble kadib doorasho khilaaf hareeyay oo uu isagu amray ayaa lagu sheegay in Ra'iisul Wasaaraha uu ku booriyay xubnaha guddoonka la doortay inay dardargeliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan doorashooyinka iyaga oo kaashanaya guddiga heer federaal. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay inuu sii wadi doono waantii uu ka dhex waday siyaasiyiinta Somaliland oo ay kala hogaaminayaan guddoomiye Cabdi Xaashi iyo Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Ra'iisul Wasaaruhu aqoonsaday guddi hal dhinac ah isla markaana qayb ka noqday labadii garab ee siyaasiyiinta gobolada Waqooyi halkii uu dhexdhexaad ka noqon lahaa. wararkii ugu dambeeyay doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa eegaynaa. madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Hirshabelle ayaa saacadaha soo socda la filayaa inay soo gudbiyaan liiska murashaxiinta aqalka sare. maamuladan oo muddooyinkii u dambeeyay ka cagajiidayay inay shaaciyaan liiska murashaxiinta ayaa la sheegay inay salka ku hayso dib u dhacooda isqabqabsi weli ka dhex taagan beelaha kuraasta iska leh. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa la sheegay in waqtiga ugu dhow uu soo gudbin doono liiska murashaxiinta aqalka sare xilli uu doonayo maamulkiisa inuu noqdo maamulkii saddexaad ee bilaabo doorashada aqalka sare. Deni ayaa sida la filayo liiska waxaa ka soo dhex muuqan doona siyaasiyiin miisaan ku dhexleh siyaasadda iyadoo sida wararku ay sheegayaan inta badan ay soo noqon doonaan senataradii hore. dhanka kale Cali Guudlaabe iyo Qoorqoor ayaa 24 saac soo aadan iyagana ku dhawaaqi doono
liiskooda aqalka sare. Labadan maamul ayaa qorshe u ahaa inay soo gudbiyaan liiska Arbacadii la soo dhaafay, balse aanay soo gudbin. Madaxda ayaa la sheegay in ay weli caqabad kala kulmayaan beelaha ayna ku adkaatay inay go'aan ka qaataan liiska laga sugayo xilli murashaxiin fara badan ay ku tartamayaan aqalka sare. Liisaska murashaxiinta ee la soo saari doono ayaa la filayaa inay ka maqnaadaan murashaxiin waaweyn xilli weli hardanka uu socdo. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa si weyn uga hortimid qorshe uu damacsan yahay Midowga Afrika. Xukuumadda Soomaaliya ee uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka hortimid qorshaha uu ururka Midowga Afrika ku dhimayo ciidanka AMISOM ee ka howlgala dalka xilli weli uu socdo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo ka hadlay warbixintii Midowga Afrika ayaa tilmaamay inay tahay mid xaqiiqda ka fog, isla markaana khubarada sameeyay aysan wax wada tashi ah kala sameyn dowladda federaalka ee Soomaaliya. Warbixinta iyo xulashooyinka maahan ikhtiyaaro wanaagsan xilligan. Khubarada sameeyay qiimeynta si ku filan ulama tashan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in dowladda Soomaaliya ay toddobaadkii hore la wadaagtay mowqifkeeda Midowga Afrika iyadoo laga fakarayo mas'uuliyadda amniga. Maxamed Cabdirasaaq oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inay doonayaan in ciidamada AMISOM ay qaataan doorkooda iyaga oo taageeraya kuwa xoogga dalka, isla markaana looga baahan yahay inay ka qayb qaataan dagaalka adag ee lagula jiro Al-Shabaab. Hadalkan ayaa ku soo-aadaya xilli xasaasi ah, isla markaana ay dowladda u diyaar garoobayso doorashada Soomaaliya oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo midda madaxweynaha. AMISOM ayaa tan iyo 2007 ka howlgalaysa Soomaaliya, waxaana ciidamadeeda ay joogaan magaalooyin kala duwan oo ku yaala gobolada dalka Soomaaliya. Hagaag daawadayaal, halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen xulashada wararka. daawashadiina wacan ood ku mahadsantihiin. Nabadgelyo.